Galcad Media News. Galcad Media News. kusoo dhawaada daawadayaal warka Galcad Media qodobada ku daawan doontaan waxaa ugu daroon al-shabaab oo la ogaaday waxa ay u kordhiyeen weerarada ay ku qaadayaan ciidamada dawladda Soomaaliya inay tahay geerida Sheekh Cali Dheere al-shabaabkii uu weeraray saldhigga Balidoglo oo la ogaaday halka ay ka yimaadeen iyo tiradooda xog ayaan idinkaga hayaa Soomaaliland oo wafdi u diray Cali Masaarka Axmed Madoobe taliska Jabuuti ee saraakiisha qaybta 12aad oo ku dhawaaqay howlgal degdeg ah looga xiranayo Galmudug Axmed Madoobe oo banaanbax culus oo looga soo horjeedo shirka iskaashiga Soomaaliya ka wada magaalada Kismaayo Kenya oo sheegtay inay qabatay maskaxdii ka dambeysay weerarada badan ay ku dhinteen oo ka dhacay dalka Kenya madaxweyne Farmaajo magacaabay taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliya ciidamada qoontood oo rasaas nool u adeegsaday kala xiirinta dibadbaxayaasha dimuqraadiga doonka ah iyo gudoomiyaha baarlamaanka dalka Neebaal oo iscasilay kadib markii uu kufsaday haweeney hagaag haddii aan ugu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelka si aad u hesho war ku saabsan akhbaaraadka caalamka intii aad maqasheen iyo qodobo kale ku soo dhawaada daawadayaal Galcad Media. Galcad Media News. Galcad Media News. Galcad Media News. dawladda Soomaaliya ayaa u muuqatay inay isku koobtay oo kaliya difaaca wadada Maka al-Mukarrama iyo xaafadaha ku tidsan halka inta kale magaalada Muqdisho yihiin alwaamuuraha sahal al-shabaab ayaa la ogaaday in ay wax u kordhinayaan weerarada ay ku qaadayaan ciidamada dawladda ay tahay geeridii afhayeenkii al-shabaab Sheekh Cali Dheere oo dhawaan u geeriyooday dhaawac daran oo ka soo gaaray weerar ay ku qaadeen kolonyo uu la socday Cali Dheere ciidamada dawladda Soomaaliya deegaan u dhow degmada Awdigle weeraradii ugu badnaa uguna adkaa ayay toddobaad gudihiisa ka fuliyeen al-shabaab saldhigyo military oo ku yaala gobolka Shabeellada Hoose weerarkii ugu dambeeyay shabaab waxay ku qaadeen garoonka Balidoglo oo ay degan yihiin ciidanka ugu adag ciidanka Soomaaliya ee danab ciidan Mareykan ah iyo kuwa ka tirsan Amisom dagaalamayaasha al-shabaab ee weerarka ku qaaday saldhigga Balidoglo waxay ka bixeen degmada Janaaliye deegaanka Tooro ee gobolka Shabeellada Hoose waxaana tiradooda lagu qiyaasay 50 ilaa 60 dagaalame waxayna mareen deegaanka wada ka aadan dhanka Buurhakaba sida uu qof magaciisa qariyo ku sugan Janaaliye noo sheegay al-shabaab guul weyn kama gaarin weerarkii ay ku qaadeen saldhigga Balidoglo balse waxaa lagu tilmaamay inay ahayd fariin ay dirayeen taasoo ah inay jiraan oo sii dagaalami karaan ciidamada dawladda Soomaaliya ku sugan Shabeellada Hoose ayaa halis ugu jira al-shabaab sababtoo ah waxay dhexda ugu jiraan al-shabaab sidoo kale weerarada shabaab ee Muqdisho iyo gobolka Shabeellada Hoose ayaa la sheegay inaysan joogsan doonin ilaa shabaab laga saaro dhulka ku teedsan wabiyada iyo badda ee Muqdisho iyo labada Shabeelle xukuumadda Soomaaliland ayaa wafdi u diraysa magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka Jubbaland si uga qayb galaan Cali Masaarka madaxweyne Axmed Madoobe sida uu shaaciyay Faysal Cali Waraabe oo ah hogaamiyaha xisbiga UCID gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID Faysal Cali Waraabe ayaa sheegay in xukuumadda Muuse Biixi u diyaarisay wafdi ka kooban 6 xubnood si uga qayb galaan Cali Masaarka Axmed Madoobe Faysal Cali ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay garab taagan yihiin maamulka Axmed Madoobe isla markaana ay u hambalyeynayaan wax kasta oo ay qabsadaan Faysal Cali Waraabe waxa uu sidoo kale ka dhawaajiyay in Cali Masaarkaasi u tagayaan sidii ay u socodsiin lahaayeen qadiyadda Soomaaliland ee goonisutaaga ah isagoo xusay in wafdigooda ay u diyaar ahaayeen mar hore balse ay saameysay hakintii duulimaadyada Kismaayo ee dawladda Soomaaliya Somaliland ayaa u aragta fursad wanaagsan oo danaheeda kaga faa'iideysan karto khilaafka xooggan ee u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ee ka dhashay dib u doorashada Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland dawladda Kenya ayaa sheegtay inay gacanta ku soo dhigtay maskaxdii ka dambeysay weerarkii Hotel Digital
hay-adaha ammaanka ee dalka Kenya ayaa waxa ay shaaciyeen inay gacanta ku soo dhigeen inay sheegeen inuu ka dambeeyay weerarkii ay shabaab ku qaadeen Hotel District ee magaalada Nairobi. ninkan oo magaciisa lagu sheegay Vuus Ahmed Hamdun oo ah 28 jir, waxa ay sheegeen hay-adaha ammaanka dalka Kenya inay in muddo ah ku raad joogeen, ugu dambeyntiina toddobaadkan gudihiisa ay ka soo qabteen guri uu ka deganaa magaalada Mombasa. dowladda Kenya ayaa intaa waxay ku dartay in Vuus Ahmed Hamdun oo ahaa madaxa qorsheynta weerarkii Hotel District isagoo sidoo kalena martigeliyay shakhsigii isku qarxiyay hoteelka banaankiisa, kaas oo magaciisa lagu sheegay Maahir Rizig. dowladuna ay sheegtay inuu ka soo baxay Soomaaliya. waxaa kale oo dowladda Kenya ay ku eedeysay Vuus inuu qori jiray dhalinyarada si ay ugu biiraan Al-Shabaab. dhismaha Hotel District oo ku yaala xaafadda Westland ee magaalada Nairobi oo ay weerar ku qaadeen Al-Shabaab ayaa waxaa la sheegay inay ku dhinteen ilaa 21 ruux oo iskugu jiray dalxiisayaal reer galbeed ah iyo qaar kale oo hoteelka deganaa. sidoo kale waxaa xusid mudan in dadka ku dhintay hoteelka Soomaalina ay ku jireen. taliyaha qaybta 21aad ee ciidanka xoogga dalka Generaal Cabdicasiis Cabdullaahi Qooje ayaa sheegay inay dhowaan bilaabi doonaan dagaal ka dhan ah dagaalamayaasha shabaab oo deegaano ka mid ah maamulka Galmudug gacanta ku haya. Generaal Qooje ayaa warkan ka sheegay kadib markii uu la kulmay saraakiisha ugu sareysa ciidanka dalka Jabuuti oo ka tirsan Amisom, kuwa uu ka yimid magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan soona gaaray Dhuusamareeb xarunta Galmudug. sidoo kale taliyaha ciidanka Amisom qaybta gobolka Hiiraan Major Cabdiraxmaan Maxamed Ibraahim oo u dhashay dalka Jabuuti ayaa isna sheegay inay Amisom markasta diyaar u tahay inay garab istaagto ciidanka xoogga dalka ayna ka qayb qaadanayaan dagaalka mar walba lagula jiro Al-Shabaab. kulankan waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye Qarafaan iyo saraakiil ka tirsan qaybta 21aad iyo maamulka Galmudug. dhinaca kale saraakiishan ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta Amisom gaar ahaan kuwa dalka Jabuuti ayaa sidoo kale kulan kula yeeshay xafiiskiisa madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan. sidoo kale labada dhinac ayaa kulankooda diiradda ku saaray howlgal dhowaan ka bilaaban doona deegaanada uu ka kooban yahay maamulkaasi, gaar ahaan kuwa ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa darajada sareeya guuto dallacsiiyay Cismaan Maxamed Cabdullaahi Kaniif ayaa wareegto u magacaabay taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliya. sareeya guuto Cismaan Maxamed Cabdullaahi Kaniif ayaa bedelay taliye ku-xigeenkii hore ee ciidanka booliska Soomaaliya sareeya guuto Saciid Axmed Kadiye. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u rajeeyay sareeya guuto Cismaan Maxamed Cabdullaahi Kaniif in waajibka la saaro u dardargeliyo. markaana haddii aan fiirino magaalada Kismaayo, iyadoo shalay ay qaadaceen maamulada Jubbaland iyo Puntland ka qaybgalka shirka iskaashiga madasha Soomaaliya oo Muqdisho ka furmay, ayaa waxaa Kismaayo ka socda banaanbax looga soo horjeedo shirkaasi. magaalada Kismaayo ayaa saacadaha soo socda ee maanta ah waxaa la filayaa inuu ka dhaco banaanbax weyn oo looga soo horjeedo shirka madasha iskaashiga Soomaaliya oo shalay Muqdisho ka furmay, gaar ahaan xirada Xalane. banaanbax ayaa waxaa ololeynaya mas'uuliyiin ka tirsan xafiiska madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe. ciidamada Hong Kong ayaa rasaas nool u adeegsaday kala ceerinta dibadbaxayaasha dimuqraadiyadoonka ah. ciidamada booliska Hong Kong ayaa toogasho ku dilay qof ka mid ah dadka hormuudka u ahaa dibadbaxyada dimuqraadiyadoonka ah ee ka socda Hong Kong. wararku waxay sheegayaan rabshadaha Hong Kong ka socda oo sii xoogeystay in ciidamada iyo dadka dibadbaxaya ay gacanta iskula tageen, taasoo keentay in ciidamadu ay rasaas nool adeegsadaan. wararka laga helay xarumaha caafimaadka Hong Kong ayaa sheegay in la geeyay ku dhawaad 15 ruux oo dhaawacyo kala duwan qaba. laba ka mid ah dadka dhaawacmay ayaa xaaladooda liidataa sida ay ku warameen saraakiisha caafimaadka. muuqaalo baraha bulshada la soo dhigay ayaa waxaa ka muuqday dad qaba dhaawacyo oo wadooyinka yaala kuwaas oo caawimaad dalbanaya. dibadbaxyada Hong Kong ka socda oo muddo 4 bilood ah jirsaday ayaa sababay in weli xaaladdu cakiran tahay.
ugu dambeyntii gudoomiyaha baarlamaanka dalka Nepal ayaa iscasilay kadib markii uu kufsi lagu weydiiyey. Afhayeenka baarlamaanka dalka Nepal oo sidoo kalena ka tirsan xisbiga talada haya dalkaas ayaa iscasilay kadib markii haweeney ka tirsan shaqaalaha baarlamaanka Nepal ay ku eedeysay inuu kufsaday. haweeneydan eedeysay gudoomiyaha baarlamaanka Nepal waxa ay sheegtay in kufsigu dhacay Axadii la soo dhaafay, waxaana ay tilmaantay in xilligaas gudoomiyuhu sarqaansanaa. Taliyaha booliska magaalada caasimadda ah ee wadanka Nepal waxa uu sheegay in haweeneydu ay kiiskan soo gaarsiisay shalay oo Isniin ahayd kadibna guddi u saareen si baaris lagu sameeyo. Afhayeenka baarlamaanka Nepal waxa uu sheegay in uu iscasilay sida uu guddigan kiiska baariyo ugu fududaato su'aalo weydiintiisa. Warbaahinta dalkaas qaarkood ayaa sheegay in xisbiga uu gudoomiyuhu ka tirsan yahay ay u soo jeediyeen inuu iscasilo inta baaristu socoto. daawadayaal waa naga intaa warkii aad kala socoteen Galcad Media. haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelka si aad u hesho warar ku saabsan akhbaaraadka caalamka. Galcad Media. Galcad Media News. Galcad Media News. Galcad Media News.